maxamed waa mahadsantahay. magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug saaka waxaa la filayaa inay yimaadaan taliyaasha ciidamada qalabka sida ee dalka Soomaaliya ugu sareeya iyadoona qabanqabada ama soo dhaweynta madaxda ama saraakiisha ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka socoto dhuusamareeb. waxaana la sheegay waxyaabaha ay u imaanayaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug inay tahay dadaalada ama qorshaha uu rabo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre inuu markaasi ka fuliyo ama uu markaasi mas'uuliyiinta sarsare ee ku dhaqan magaalada dhuusamareeb ee galmudug madaxdooda kamid ah inuu markaasi heshiisyadii waxyaabihii ay wadasaxdeen inay goobjoog ka noqdaan. marka magaalada ilaa maalmahan iyo sidoo kaleeto dhowrka cisho fooda lagu soo hayo waxaa la filayaa inuu food kala duwan dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan ay yimaadaan. maxamed wararka qaar baa sheegaya in taliyaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ujeedka tagista magaalada dhuusamareeb ay tahay sidii maleeshiyaadkii dhawaan ra'iisul wasaaruhu la wareegay ciidamadaha ay ku sugnaa Xiraale ay dawladdu ugu dhaqan celin lahayd magaalada Muqdisho oo taliyaashan ay la wareegi lahaayeen gaadiidkaas dagaal iyo sidoo kale xubnahan maleeshiyaadka ee ra'iisul wasaaraha lagu wareejiyay. wararkaas maxaa ka jiray? maxamedow ra'iisul wasaaraha markii uu tagay Xiraale kulay gaadiidkii ciidankaba waa la wareegay, laakiinse dabcan warar aan helnay ayaa waxay sheegayaan in maamulkii deegaanka Xiraale ay ka codsadeen ra'iisul wasaaraha in bartooda lagu qalabeeyo si dadka halkaas ku dhaqan ay markaas iyagu amnigooda ay u sugaan, dabeedna ay halkaas iyagu ay ku sugnaadaan oo ciidan ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ay noqdaan. marka arrintaasi ma jirto, laakiinse waxay u imaanayaan saraakiishu inay markaasi magaalada ay yimaadaan, dabeedna ay sida ugu dhaqsiyaha badan ciidamada qalabka sida ee kala duwan ay ku amraan dhuusamareeb sidii ay ku imaan lahaayeen, maadaama horay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu markaas isagu amar ku bixiyay in si degdeg ah hay'adaha kala duwan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya inay yimaadaan magaalada dhuusamareeb. madaxda maamulka ahlu sunnada iyaguna ay aqbaleen in magaalada dhuusamareeb ay ka howlgeli karaan laamaha kala duwan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. marka arrintii bay xoojinayaan, arrintii bay u yimaanayaan saaka sida wararku ay sheegayaan. kadibna waxaa laga yaabaa in ciidamada kala duwan ay dhuusamareeb markaasi soo gaaraan haddii khabar raalli uu ka noqdo.